haddaa hore u maqasheen xildhibaan axmed khaliif oo yidhi xildhibaanka 48aad isagoo xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda ka tirsan ayuu haddana xildhibaanka 38aad lambarka axmed khaliif ka booday uu yahay markaa waxaan leeyahay hambalyo dad badan baa waxay yiraahdaan axmed khaliif waa xildhibaanka golaha ugu da'da yar leh shaambadda cid baa ila jeclaatay waxaan maanta dadka shacabka Soomaaliland maanta aan u sheegayaa xildhibaanka golaha Soomaaliland ugu da'da yari waa xildhibaan Nuuridiin Axmed Dayib weeye xildhibaankan yaak fadhiya dhinacayga toogan waa ninka inkastoo de muuqaal ahaan aan ka yarahay laakiin da ahaan waa iga yar yahay title-kiina waan ku wareejiyay maanta sax waa kala wareejiyay waxaan si gaara ugu hambalyeeynaya xildhibaan Siciid Cabdisamed oo runtii xildhibaan aad iyo aad u firfircoon oo waxa weeyaan firfircoonidiisii xagga siyaasadda uu ku darsaday firfircooni kale oo xagga waxbarashada ah saaka saaxiibkii Cabdisamed Cuday xildhibaanka Siciid Cabdisamed oo ka qalan jabiyay jaamacadda Armis heerka masterta ayaanu halkan ugu hambalyeynayna waxaan leenahay hambalyo dhammaan baa anagoo ardayda jaamacadda ka qalan jabsay oo hambalyeynaya waxaan gaar ahaan u sii hambalyeynaya saaxiibkay xildhibaan Siciid Cabdisamed Cuday waxaan leeyahay hambalyo haddaa hore u maqasheen xildhibaan axmed khaliif oo yidhi xildhibaanka 48aad isagoo xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda ka tirsan ayuu haddana xildhibaanka 38aad lambarka axmed khaliif ka booday uu yahay markaa waxaan leeyahay hambalyo ilaahay cilmigaad baratay aan kugu anfaco dalka iyo dadka iyo diintaba kii uga faa'iideeyay allah ka dhigo waxaan kaloo u hambalyeynayaa inantaan adeerka u ahaa ee uu dhalay xildhibaan axmed cabdi muuse oo ah xildhibaan golaha wakiilada aan ka wada tirsanay ahna gudoomiyaha gudidayda waxaan leeyahay muwaahib hambalyo ilaahay cilmigaad baratay ha kugu anfaco waxaan maanta farxadda la qaybsanaynaa ardayda jaamacadda Armas ka qalin jabisay gaar ahaan xildhibaankayaga 38aad Siciid Cabdisamed Cuday iyadoo guud ahaan ardayda u wada hambalyeynayna waxaanu si gaara ugu hambalyeynanaa Siciid oo ah runtii figariska la taaban karo siyaasadda ama mataqaana maxaan ku sheegay wax la yiraahdo horumarka bulshada mataqaana maxaan qayb laxaad leh ka ah sidoo kale wiilku waa wiil aan abti u ahay oo farxad gaar ah maanta dareemaya inta badan anigu waa ka jecelahay waxa weeye mataqaana wiilashaan abtiga u ahay ama mataqaana maxaan ku sheegaa ciddaan abtiga u ahay waa ka jecelahay dadka kale that's way waxa weeye mataqaana markasta garabkiisa u taaganahay una taagnaan doonaa isaga iyo mataqaana inta kaleba ee la midkaaba hambalyada iyo bogaadinta ugu darayaa muwaahib axmed cabdi muuse inni oo ah runtii mataqaana saaxiib ka mid ah saaxiibada iigu qaalisan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland gabadho sidoo kale iyana aan abti u ahay abti hambalyo congratulations for your achievement horay u soco insha Allah taala waad guulaysan doontaa abti Allah ku barakeeyo cilmiga aad baratay Allah kugu anfacabti maanta anigoo xanuunsanaya waxaan u soo kacay qalin jabinta inantayda oo aan ugu hambalyeynayo muwaahib axmed cabdi muuse hambalyo baan leeyahay xaggan waxay garab joogo saaxiibkay Siciid oo golaha ku jira dowladda hoose oo aan leeyahay hambalyo waxaanan leeyahay ha ku daydaan xildhibaanada kale daada lagama weynaado tacliinta waxaan leeyahay ha lagu daydo tacliinta ha la galo waxa la kordhisto jaanis fara badan oo aan dadkii hore helin baa ayaa yaala markaa ha laga faa'iideystaan la Siciidna waxa la horo soco waxaan marka hore u hambalyeynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Armas University guud ahaan waxaan leeyahay cilmiga barateen Allah idinku anfaco waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa xildhibaan Siciid Cabdisamed oo runtii xildhibaan aad iyo aad u firfircoon oo waxa weeyaan firfircoonidiisii xagga siyaasadda uu ku darsaday firfircooni kale oo xagga waxbarashada ah Siciid waxaan leenahay hormuud baad u tahay dhalinyarada hormuud baad u tahay dhammaan bahda xildhibaanada marka waa kugu dayan doonaa dhammaantayo
waxaa kale oo aan u hambalyeynayaa saaxiibka Axmed Indi inantiisa oo iyaduna mawaahib oo qalin jabinaysa iyadana waxaan leeyahay ilaahay cilmiga baratay ha kugu anfaco guud ahaan waxaan leeyahay jaamacadda Armas University maamulkeeda madaxdeeda macallimiinteeda shaqaalaheeda iyo dhammaan cid kasta oo ku xeeran waa ku mahadsantihiin inaad soo saartaan arday aad iyo aad loogu hanweyn yahay waxbarashadeedana dhammaystay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu jaamacadaheena dalka oo dhan inoo jiro oo inoo joojiyo maanta maalin weyn waxaan joognaa graduationkii ama qalin jabintii jaamacadda Armas ugu horreyn waxaan u hambaleynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay maanta u dabaaldegaya inay maanta aqoon yeesheen hambalyaan leeyahay rag wiilal iyo gabdhaba waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo aan u hambalyeynayaa walaalkay saaxiibkayga gaarkaa xildhibaan Siciid Cabdisamed Culey oo aan anigu u aqaano barigii hore waxaan idhi xildhibaanka Afriisteetanaad baa jiray oo 83 baan ka boowday waxaan la sugayay jaaniskan maanta waxaan kugu wareejinayaa xildhibaankii 63aad tahay ee golaha wakiilada waxay ahayd inaad golahayga joogto hambalyaan ku leeyahay hambalyo walaal waxaan kaloo rabaa inaan maanta dadka mid kale aan la wadaago dad badan baa waxay yiraahdaan Axmed Khaliif waa xildhibaanka golaha ugu daada yar leh shaambada cid baa ila jeclaatay waxaan maanta dadka shacabka Soomaaliland maanta aan u sheegayaa xildhibaanka golaha Soomaaliland ugu daada yari waa xildhibaan Nuuridiin Axmed Dayib weeye waa xildhibaankan ag fadhiya dhinacayga toogan waa ninka inkastoo de muuqaal ahaan aan ka yarahay laakiin daahan waa iga yar yahay title-kiina waan kugu wareejiyay maanta sax waa kala wareejiyay